horfadhi TV horfadhi TV waa barnaamijyo dabcan waxaad ka maqashaan wadankeena hooyo caalamka diblomaasiyadda sayniska sheekooyinka xalada leh sidoo kale dabcan caafimaadka technology-ga horumarka adduunka wararka ugu dambeeya caalamka geeska gees ilaa iyo dunida iyo ka daba tag xogo waaweyn iyo alaab iyo markastaba dabashana qiimaha aad ka maqashaan mar walbana waxaan sii daba dhignaa warbixino kale oo iyaguna dabcan falanqeynta maalinta Jimcaha ugu talagalay inuu si gaar ah wadankeena diiradda ugu saarno dabashana qiimaha leh aad iyo aad baan runtii aan rabaa inaan uga mahad celiyo dabashana si kasta meel kasta maqlayaan fadlan waxaan rajaynayaa inaad si weyn ula socotaan kol walba warbaahinta horfadhi media oo mar walba diyaar iyaduna idila in idinka qabto wararka xogaha dhinaca diblomaasiyadda dad wanaagga iyo waliba qodobo kale la xiriira waxaan rabaa meesha qiimaha barnaamijkeena Jimcaha dhowr qodob oo muhiim ah ayaan rabaa inaan kaga hadlo ay ka mid tahay dowladda Soomaaliya oo hadeerto aad ogtihiin in muddo 8 maalmood ay madaxa la gashay inkastoo guriga wasiiradu aad u daaheen oo ugu dambeyntii la magacaabay laakiinse ay aad iyo aad u daaheen oo runtii ay dib u dhac weyn keentay waxaan rabaa inaan dowladdeena aan waxyaalaha hadeerto ka qaloocanaya inuu ka toosino oo mar walba waxay horfar media aaminsan tahay dowladda Soomaaliya in la toosiyo laakiin waxaa jira waxyaalo waaweyn oo khaldami kara haddaan hadeerto laga hortagin inagana afeef inoo noqon kara ummadda Soomaaliyeedna ay ku baraarugi karto waxaana rabnaa inaynu arrimo dhowr ka hadalno ay tahay siyaasadda arrimaha gudaha siyaasadda arrimaha dibadda waxyaalaha inagu soo kordhay dabcan habka ay wada shaqeynta waxyaalihii dowladdii hore u hagaagay ee ay tahay in lagaga daydo waxyaalihii ka qalloocday ee tahay in laga leexdo waxyaalahaas oo dhan ayaynu isbarbardhigi doonaa balse marka horeysa dabashada qiimaha qaybta koowaad baan ku kaaftoonno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maaha siyaasi dadka Soomaaliyeed ku cusub mana aha waji cusub oo xukunka madaxtinimada ay ku sareysa dalka ku cusub madaxweynaha waxaa jiray 4 sanadood ka hor markuu dalka xukumay 4 sanadood dalka hore ee dalka xukumay oo ka dhigan inuu intii u dhaxaysay sanadii 2012 ilaa 2016 intuu madaxweynaha ahaa waxaa jiray waxyaalo madaxweynaha aad iyo aad loogu dhaleeli jiray waxaa Soomaalidu tiraahdo fulxantii ma moogay madaxweynaha dhaliilo aad u badan ayaa runtii mar walba dusha laga saari jiray kuwaasoo waxyaalaha qaarkoodna afyas ay iska muuqdeen oo ay xaqiiqooyin lahaayeen iyo marakacayaal waxyaalaha qaarkoodna laga yaabo inay ka badbadisahay marka waxyaalaha waaweyn ee majorka un baynu ka hadlanaa madaxweynaha waxaa aad iyo aad loogu dhaliili jiray dhinacyada arrimaha Soomaalida dhibaatada mar walba haysata ee dowladooduna ka ritay qaabka dowladooda ay u lumiyeen markii damana maarta iyagu isku dulmiyeen mar walba waxay ku yeelataa impact negative ay ku yeelataa ama saameyn xun ay ku yeelataa wayna grief gareeyaan mar walba way tawdaan oo tabasho iyo maartay waxa ku jira maartay dabcan in ay meel fog ka tabanayaan oo wixii maartay ay tabanayaan waxa kamid ah marka qabyaaladda oo qabyaalad xumaatay oo qalloocatay fahamkeedu qalloocday Soomaaliya ayuu u yahay tusaale jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxa burburiyay tusaale u yahay waayo fahamka qabiilka ayaa Soomaalida ka qalloocday kadibna ayagoo hal qabiila ayay fahamka markuu ka qalloocday maalin walba Soomaalida faham baa ka qaloocanayay fahamkii bay isku dileen sida hadeer maanta inuu dhex taaganahay fahamkii inagoo muslina 100% sunni ah shaafici ah oo fahamka diinta inooga qalloocday kadibna isku gaalaysiinay horta sidaas uun bay u noqotay qabyaaladuna haddii aad aaminsan tahay Soomaalidu inaysan يعني laga hadli maayo shakhsi gaal inuu ku jirin ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa Soomaalidu inay dalka Soomaaliya muslim ahaa oo wadan 100% muslim hadda aaminsan tahay oo sunni ahaa balse ay faham qalloocday la isku dilay diin ahaan la isku weeraray exactly waxa la mid ah inay ahaayeen hal qabiil oo iyadoo faham qalloocday oo qabyaalad la isku dilay marka arrintaasi mar walba madaxweynaha Soomaaliya waxaad ogtihiin in waxyaalihii mar walba ay dadka dhaleelaa qaarkood ay ku dhaleeli jireen qabyaaladu kamid ah oo qabyaaladu Soomaalidu wayna nacab tahay in la is qabyaaladeeyo waliba ninka hogaamiyaha aad bay uga dhiidiyaan markuu qabyaaladii waxa ay ku arkaan iyaguna way sameeyaan bal marka Ilaahay waxa kale oo iyaduna la yaab lahayd oo maartay xusud mudneed in madaxweynaha waxyaalihii lagu dhaleelay kamid ahayd si kale marka loo dhigo arrinta musuqmaasuq oo haday tahay mushaharka haday tahay arrimaha iyo dhulka haday tahay arrimihii garoonka airportka agtiisa waxyaalahaas ay jireen in ay maartay ayaguna ay dhibaato xoogan ay lahaayeen oo madaxweynaha mar walba loogu digayay isla markaana looga maartay dabcan lagu dhaliili jiray aad iyo aadna uu maartay samcadiisa ay hoos ugu dhigtay waayadaas waxa kale oo marka hadaba iyaduna jiray
oo runtii aad iyo aad iyaduna usoo shacbaxaysay sidii siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ahayd. Dad badan oo Soomaaliyeed madaxweynaha waxay ku dhaleeli jireen in qaabka siyaasadda arrimaha dibadda xilligaasi uu hogaamiyey inay ahayd qaab ka hooseysa waxyaalihii dadka Soomaaliyeed oo ha iska aqoon yaraadeen, ha iska qabyaalad badnaadeen, fahamkooda marba ha qalloocdo, kooda diinta, kooda dhaqanka, kooda qabiilka, kooda dalkooda, kooda wadaniyadu. Laakiin Soomaalidu waxay iskaga jira qab iska lahaayeen oo dadka qabkana waxaa keenay wax ay Soomaalidu ku dhalatay DNA gaar waa maahe. waxa weeye waa dhaqanka ay ku noolaayeen oo ah dhaqanka reer baadiyaha. Dadka reer baadiyaha ahi dadka way ka qabweyn ummadaha waxa ugu qabweyn dadka Carabta ah oo kale, gaar ahaan kuwii reer baadiyaha. Carabtu markay reer magaal noqotay bay qabka ka tageen oo magaaladii iyo markay barteen baabuurtii iyo casrigii iyo technology-gii ayay qabnimadii isla weynida laga hadli maayo kibirka ah. Isla weyni waxaa jirta qofku inuu iskala weynaado in la dulmiyo baa jirta, oo taas kibir lama dhaho. qofku inuu madaxiisa hoos u dhigo, inuu maartay uu ka waantoobo miinis maaha inuu qofku kibir ku jiro. Marka taas oo kale madaxweynaha iyadana aad baa loogu dhaleeli jiray, hadday tahay faragelintii Ethiopia, hadday tahay joogitaankii Gabre ee gaarka madaxtooyada, hadday tahay safaradii madaxweynuhu u geli jiray, hadday tahay marar badan meelo dhowr oo madaxweynuhu uu tagay oo aan la jeclaysan. waxyaalahaas oo dhan waxay ahaayeen waxyaalihii madaxweynaha marka hore lagu dhaleeli jiray. waxaa kaloo jiray xilliga madaxweynuhu mucaaradka u ahaa, ilaa madaxtinimadii madaxweynuhu waa ka degay, xilkii ugu wareejiyey kadib si fiican buu u wareejiyey. xilka 2016 madaxweyne Farmaajo ugu wareejiyey, mucaarad buu noqday. qaabkii mucaaradka uu u noqday madaxweynaha dadka Soomaaliyeed aad iyo aad bay u dhaliileen. isaga kaliya maaha, laakiin dad badan baa dee la dhaliilay oo qaarkood ay kamid yihiin kuwa hadeerta weli madaxnimo haysta sida madaxweynaha Jubbaland iyo Puntland iyo kamid yihiin baa aad loo dhaliilay. waxyaalaha marka lagu dhaliilay waxa weeye madaxweynaha maadaama isagu hogaamiye qaran soo noqday markuu hadlayay inuusan si qaran u hadlin. arrimo waaweyn oo madaxweynaha iyo hadallo laga hayaana way iska bajiraanba, way cad yihiin. oo tusaale ahaan arrinta ciidanka Eritrea isagu maanta uu soo arkay waxyaalaha uu ka yiri oo uu yiri waa la iibsaday. madaxweynaha Soomaaliya soo matelay waddanka Soomaaliya soo matelay inuu ciidanka qaranka uu mar uu taliyaha u ahaa, birina uu taliyo uu noqon karayay maadaama maanta uu yahay inuu yiraahdo waa la iibsaday oo carruurtii waa la iibsaday oo kale inuu dhaho hadal qarannimada ka hooseeyo leeg ma aha. hadal qarannimada ka hooseeyo waa marka hadal qarannimada leeg ka maahay. waxaa kamid ah arrimihii kale, dhaqdhaqaaqyadii kale iyo mudaharaadadii iyo waxyaalihii kale oo dadka qaarkood ay yiraahdeen uma qalminin madaxweynaha hogaamiye soo noqday. arrimahaas markaa hadda waan taabanana hadhuuti barnaamijka waa u guda dhaci doona, barnaamijyo weyn ka sameyn doona. laakiin waxaan rabaa inaan soo koobo isliqsiyo waxyaalaha madaxweynaha markii hore laga aaminsanaa iyo waxyaalaha hadeerto dabcan laga filayo in si la isugu dilo oo aynu isugu maartay dabcan isku cunsiino ayaan idin dareensiinayaa kaliya. runtii waxyaalahan aan hadeerta ka shakeynayo waa waxyaalihii dadku arkayeen waaye. waxyaalaha badan aan arkayn, waxyaalaha badan aan arkayn oo xogo badan oo hayno, waxyaalo badan oo dhacay, documents la soo bandhigay, dhulal iyo dhaqaago iyo dhaqaalo iyo heshiisiyo hoosaadyo iyo kuwa fashilmay iyo rabitaano dala sheeyay, waraaqado la qoray iyo waxyaalo badan baa jira. laakiin waxaas oo dhan hadda ma rabno maadaama madaxweynaha hadeerta talada waddanka hayo. waxaa doonaa madaxweynaha waqti la siiyo oo uu neefsado oo runtii waqti la siiyo. marka waxaan rabnaa inaan laakiinse taataabano madaxweynaha xasuusino dhahno arrimihii shalay kaa khaldamay maanta ay kaa khaldamay, ilaa muuminka god laba jeer lagama wada qaniino. marka madaxweynaha arrimahaas oo dhan maadaama ay runtii ay dhaliilaha loo jeedinayay markiisii hore ay ahayd, hadeer madaxweynuhu wuxuu haystaa fursado aad iyo aad u badan. barnaamijka labaad horta fursaduhu noqon doonaan, laakiin waxaan rabaa inaan idhaahno oo qaybtan aan ka dhahno intaasi madaxweynaha markii u horeysay uu ku kulansaday dhaliilaha faraha badan. waxaa jiray dhaliilo ayaguna aad iyo aad u fara badan oo markii uu mucaaradka ahaa uu madaxweynihii markaa talada hayay uu u jeedi jiray, inkastoo dhaliilahaas aysan ku jirinin musuq maasuq Farmaajo loo jeedi jiray kuma jirin, oo aysan ku jirin qabyaalad iyo aysan ku jirin, oo aysan ku jirin dabcan samcad dilis dalka iyo samcadda dalka la dilayo. laakiin maxaa ku jiray dhaliilii madaxweyne Xasan Sheekh uu Farmaajo u jeedi jiray. wuxuu oran jiray keligii taliyaata ayuu oran jiray, keligii taliyaatay oo waliba aad loogu celiyay waa keligii talis wixii lagu jabay madaxweynihii hore Siyaad Barre wuxuu sameeyay saas oo kale hadalla u badan ayay ahaayeen. iyo dalka doorashaha laga qabto iyo dabcan maaragtay arrimaha maaragtay marka ay timaado arrimaha masiiriga sida arrinta ciidamada oo madaxweynuhu hadalla kulkul ka oran jiray. ciidamada marka la qaado ciidamada la isticmaalaya, ciidamada baa la iibsaday, ra'iisul wasaarihii baa la magacaabi